aad iyo aad haddaba mawduucan inoo soo kooba waxaynu maaragtay doonayna inaynu ka hadalno maanta. صح. Een, halkan waxaa ku jira Mukhtaar Hakaale oo IT-ga iyo managementka ku takhasusay oo muddo badanna ku jiray Maxamed Cige oo isaga laftiisuna muxuu ahaayey shaqaalaysiinta motivationka disciplineka waxyaabahaasoo dhan isaguna ku takhasusay baa inoo martiya. Muxuu ahaayey de anigoo IT-gii dhinacii software development iyo maaragtay صفر. wixii muxuu ahaayey ku takhasusay. Marka waxaynu doonaynaa inaynu combine gareyno. Shalay topic baynu ka hadlaynay ahaa muxuu ahaayey IT-ga iyo ganacsiga. bal maantana waxaynu isku dayaynaa inaynu ka hadalno Mukhtaarna wuu joogaa businesska isaguna ka toqosay iyo Maxamed sida kadalik. bal waxaynu doonaynaa in aynu isku qaadno oo maaragtay aynu yara discuss garayno opportunitieska ganacsiga iyo IT-ga ku jira ee waddankii yaalla ee dhalinyarada shaqooyinka maxaa u furan maxaa la samayn karaa halkeebaa wax laga bilaabi karaa muxuu ahaayey waxyaabahaasaynu doonaynaa inaynu ka hadalno insha allah. marka waxaynu yeelaynaa qof walba muxuu ahaayey wixii su'aale ciddii su'aale haysaa martideennu waa Maxamed Cige iyo Mukhtaar Hakaale ma fahanteen. marka waad soo weydiinaysaan su'aalaha waad soo daynaysaan saasaynanu ku maaragtay ku qaada dhigayna hadduu ilaahay idhaahdo. marka Maxamed iyo Mukhtaaro bal soo dhowaada oo waxaad ku daraysaana ku dara. Mukhtaaro adoo raaliya waxa wanaagsan inta ku garanaysaa way ku garanaysaa inta kale ee aan ku garanaynin bal fadlan waxaad samaysaa noloshaadii taariikhdaadii oo kooban maxaad ka baxday maxaad qabatay bal iyadoo CV-gaagoo yaro kooban noo soo maaragtay insha allah noo soo gaabi. وهاجاك عبد الرحمن واي ماشي aniga laftirkeyga dee waan ku cusubahay sida cabdiraxmaan baa uu sheegayo oo isagaa wadda malaha meesha iga soo horreeyey waa lagu wada cusub yahay aniga laftirkeyga waa inaan markaa aan fahmo laftirkeyga sida kolba loo soo shaab gareeyo hadalka ah waay nin madarag nin waxa weeyaan stage un taagan marka lagu dhahdo hadalka waa hadalka sii daayo mararka qaar dee haddii la fakato halaga raali ahaado madaragtay hadalku igu dheeraado waa in la idhahdo soo yar gaabi xaaji waa sax weeye laga xishoon soo daaway markaa magacaygu waa Mukhtaar Hakaale waxaan odhan karaa wax weeyaan heerka jaamacadeed ee technology waxaan jaamacadda ka baxay first degree 2012 oo odhan karaa dhalinyarta ku jirta afar jirka maalaha dee markaa ugu weynaa waa la gabooweynu gabownay wallahi 2012 baan digriga koowaad aan ka baxay IT-ga jaamacaddana waxay jaamacadda Hargeysa anigu reer Hargeysaan ahay intaa kadib hayaankayga waxbarasho waa isdaba socday iyo shaqada isdaba socotay oo shaqooyinkayga ugu horreysay technology ku shaqeeyay waxay ka mid ahayd hay'adda loo yaqaan NRC oo iyadu muddo yar koowaad la shaqeynayay oo bariga dalka ku cusbayd markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay iyadana shirkadda xawaalada bariga ahayd imkana dee aad u faracya badatay iyo dahabshiil group noqotay ayaan ka bilaabay 2012 hayaankayga shaqo oo 8 sano ku ekaa dahabshiil group waxaa ka gaaray heerka maamulaha guud ee software developmentka Somtel Group oo idahab iyo waxa hoos yimaado dhan odaygu ahaa muddo 3 sano intaa kadib waxaan abuuray shirkadda aniga iyo ninkan hosting ah ee Cabdiraxmaan Baashe aanu abuurnay shirkadda Somtel Digital Solutions oo hadda 7 sano jirta oo kana jirta deegaanada Somaliland Soomaaliya Ethiopia xafiisyada kule license-na kule Canada iyo Mareykanka oo isugu imka joogo Cabdiraxmaan marka anigu intaas ku soo koobi karaa baan oran karaa taariikhdayda degalkan ku jiray muddada 20 sano ku dhow technology marka IT baad markii hore ahayd oo muxuu ahaa 9kii sano ugu horeeyay IT baad ahayd muxuu ahaa shaqadaada career-kaaga markii dambena management baad isku bedeshay aad iyo aad technical manager ha oo 9 sano ee Cabdiraxmaan sida uu sheegay waa technical oo waliba aan ka soo bilaabay xagga ugu hooseysa oo support engineer ay wala lama faanayo waanu scheme baraya waxaan doonayaa inaad maaragtay dadku inaan halkan aad tiri ma la faanaya marka lama faanayo ee waxa la yeelayaa qofka si aad maaragtay su'aalo iyo de loo fahmo wuxuu ka hadlayo ama wuxuu ka hadlayo inuu khibrad u leeyahay waxa wanaagsan in muxuu ahaayay la isbarto oo qof walba su'aalihiisa qofka su'aal hayaaba wuu garanaya ciddu su'aasha ku aadinayo ma fahantay marka wad Mukhtaar ina wad marka runtii waxa weeyaan hayaanka nololeed baan ka fikiri jiray weligeyba inaan
qaabka maamulka iyo aan isdhex geliyo iyo noloshan maanta dee qarnigan 21aad lagu jiro ee technology-ga uma kala maarto oo marka mar walbana maamulkuna wuxuu u baahan yahay inaad aqoon u leedahay waxaad maamulayso horta de shay aanad garanayba haddaad isku dayeen maamushidu adhaxdaad ka jabinaysaa marka waa ta ugu weyne aan technicalka marka anigoo kasoo bilaabay sidaa hore baan usoo sheegay xagga ugu hooseysa marka qaab maamulka iyo hayaanka nololeed meeshan u soconno iyo ganacsiga iyo meeshan la doonaya in la gaadho inaan marka wax weeyaan qaabka marka maamulkan kusoo kordhiyo marka anigu inahaasaan odhan karaa wax weeyaan mukhtaarka kale iyo maad aragtay iyo khibraddiisa waa sax weeyaan bini aadamnimo ay ku kooban nagtiga ka dhacdee waad maqlaysaa soo maha dhegtii baa baxsatay oo anigaasi markaan soo qabtay waad mahadsan tahay mukhtaaro inoo waad mahadsan tahay waayahay marka muxuu ahaayey maxamed cige adiguna walaal adigoo raaliya bal kusoo dhawow كل ورا قواحيس ninka waa laga dheregsan yahay waa malaynayaa aad iyo aad haddaan hal daqiiqo isku soo koobo mawduuca noo muhiim in aynu hore ka gallo maxamed cige sida magaciisaba idinka muuqata aad ku taqaanaan waa nin dhalinyaro certified business coach horta muhiim ma haddii backgroundkii iyo waxbarashadii hore ee qofku halkuu ka yimid aad iyo aad waxa weeyaan fi inta waxa weeyaan shaqada uu qofku ku jiray unba backgroundkiisa malaha ugu muhiimsan marka horta baajkayga koowaad waxaan ku haystaa waxa weeyaan degree in business baan ahay bachelor's degree in business and accounting and finance ayaan muddo hadda 4 sano iyo waxoogaa laga joogo aan qaatay sidoo kalena waxaan ahay certified business coach ama tababare waxa weeyaan inta badan la taliya ganacsatada iyo maamulayaasha ganacsiga sidoo kalena waxaan ahay aasaasaha xarunta mindset consulting oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa oo inta badan bixisa consulting services xagga in businesska marka la joogo saddexdii sano ugu dambeysay inta badan ahaa keynote speaker iyo business mentor kaasoo ujeedada ugu weyn ee shaqada ugu jiray ay ahayd sidii uu caawin lahaa dhalinyarada sidii ay u maximize gareyn lahaayeen potentialiskooda iyo kartidooda si ay nolosha wax u qabsadaan waxaan la shaqeeyey ganacsato fara badan iyo institutions iyo organizations fara badan hadday noqoto kuwa dawliya iyo hadday noqoto kuwa gaar loo leeyahay kuwa waddanka dibaddiisa kuwa maxalliya intaa marka laga yimaado waxaan ahay sidoo kale nin dhalinyaro inta badan barnaamijka kooban kusoo gudbiya baraha bulshada oo fariimihiisu ay gaadheen in ka badan 4 milyan oo dhalinyaro ama 4 milyan oo qof marka experience-kaygu waa 3 ilaa 4 sano marka waxaan ahay self made baan ahay nin isagu isa sameeyey isagu isa soo saaray in waxa weeyaan nutshell waa intaasaan kusoo ururin karaa waan isleeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waa si fiican haddaba mawduucaynu u gelaynaa so markaa waxaynu yeelaynaa muxuu ahaayey maadaama oo aad marti idinku noo tihiin waxaa isku dayi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo groupkan martida ah iyagoo kale aynala jooga hadduu ilaahay idhaahdo in aan bal maaragtay in yaroo kooban haddii maaragtay ay jiraan wax su-aalo ay qabaan inaan maaragtay soo daayo marka hadduu ilaahay idhaahdo waxaynu u gudageli doonaa markaa topica inaynu ka hadalno oo businesska iyo IT-ga iyo opportunitieska shaqada ay yaalo waddanka markaa waxaynu si qoto dheer maxamedow doonaynaa inaan walaal uga hadalno muxuu ahaayey dhalinyarada badankooda waxay ku jahawareersan yihiin qofku halkeebuu wax ka bilaabi karaa muxuu ahaayey marka shaqo laga hadlayo sideebuu wax u raadin karaa businesskii marka dhinaciisii laga eegana mukhtaariyo oo waxaa iyaduna maaragtay dadku ay ku jahawareersan yihiin macquul ma tahay inay dadku business bilaabaan dadka initiative haya ideoyin haysta ma bilaabi karaan wax maxaa maaragtay wax u suurtagelinaya marka qof su-aal hayaa ma jira horta intiinan kale oo doonaya wax specifica inuu weydiiyo hadda intaynaan mawduuca u gudagelin before we dive into the topic way saddex okay the real king yar isug walaal inantan ku soo dhaweynayaa walaal marka queen soo dhawo walaal wax su'aal miyaad haysaa
aad baan idin salaamaya Aad dhammaantiin soo waxaan dhawaada. Axmed Bashiir maxamed baasha kule horta xagga businesska ah aniga favorite-kaygu waa business Masha Allah. laakiin xooga cabsi bay ku jirtaa Way. cabsidaas sidee looga hortagi karaa inta aanad bilaabinba businesskii markay cabsi fara badan kugu jirto waxaad ka cabsanaysaa armay waxaani ay socon waayaan armay waxaani kugu go-aan armay dhaqaale burbur kugu dhacaa wadankeena inoo la socotaayo horta shaqa ma jirto oo waxa Way. yaraatay marna shaqadaada u baahan marna shaqadu iyadaa kuu baahan Aad iyo aad. Way. marka imika waxa boqolkiiba 99 aan oran karaa Somaliland ku noolnahay shaqadii ayaa u baahan qofkii oo Way. dadkii way yaraadeen de yani shaqo sida lagu helaa very difficult bay noqonaysaa Shaqadii baa marka adkaashay in la helo. Way. yes run markaas Way. waxay noqonaysaa waxaan weydiin lahaa cabsida si looga saari karaa businesska Waad mahadsan wow tahay. Thank you very wow much. wow aad iyo aad. Su'aal aad u muhiim ah. Muhammad, su-aasha aynu waxa urursanno. weeye Maxamed, su'aalaha intaynu ah urursanaynu mar wada dive garayn doonaa. Ka waran sidaas? let's go That's good. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه السلام. barnaamijkan runtii aad ka qiimaha badan noo daadiya xiliyadan weliba anagoo argeysan joogna wax noo adag oo yaala doon xilligan naga sheegsan moogta Cabdiraxmaanow xilliga aad iyo aad. Waan ogaamaadii ka khaliyanaya. Aniguba waa salaadii subax weeyaan. odayaasha way soo daaqday kulley baa laga soo baxay Aad iyo aad. never mind ma laha mukhtaara kaalo imika aan odhan karo waa haldoorka dhalinyarada ee IT-ga Somaliland oo dhan runtii initiative-ka sameeyay hambali horta mukhtaar maxamed yare oo maxamed cige thank you so much walaal runtii waa dhalinyarada runtii de haldoorka ah imika anu da odayaashan ku jira ayo bibliographiga de liis garan kari maaye inagu dheeraan doonaaye Masha Allah. runtii su-aashan labadooduba dhex dhigay wax weeyaan overall aan soo koobaya si nuxurlaan insha allah ay iyaguna u falanqeyn doonaan oo ay u falanqeyn doonaan taxliilin doonaan insha allah qofku Way. business idea uu heli karaa initiative-ka uu samayn karaa business plan uu qoran karaa mukhtaar oo kale maxamed cigo kale uu la kaashan karaa qodobkaan isleeyahay waa qodobka ugu muhiimsan ee caqabadda ee challenge-ka ku ah waxa weeyaan qofkii marka waxaasoo dhan soo ururiyo business plan-kii hela uu budget baa horta ugu muhiimsan inuu helo maalgelin Way. maalgelin inuu helo taasina runtii laba dhinac bay ka timaadaayo haddii reerku familiga qofku wax isku soo yara ururiyo oo 10-20 wax sameeyo businesskii markuu sameeyo business runtii wuxuu baahnaa wax la yidhaahdo working capital Way. qofkii waxa laga yaabaa 20 kun ba inuu businesskii geliyo aanu kala qorshayn Ye. bal sanadka ugu horeeya ee business start up-ka uu yahay caqabaadka aad tusaale ahaan fixed cost-ka taagan kirada ee shaqaalaha ee leerka ee adigu miscellaneous expenses-ka uu businesskaasi rangaray uu gelayo inaad wax u dhigato oo aad macnihii lacagaad backup garayso runtii dhalinyarada way ka maqantay marka Way. taana ku darsanaya su-aashan iyaga weydiinaya Way. waxa weeyaan caqabada Way. ah in qofkii heli karo maalgelin Ha. sidee loo Halkee laga samayn heli karaa? Wadadee loo mari karaa karaya? Exactly. anoo isla weliba intaan ogaalkay anoo isla weliba baanankuna runtii way adkeeyeen runtii caqabadaasa Way. haystaan isleeyahay taasun baynu ku soo koobaynaa taasumaa isleeyahay anigu aan iyo ku wareegayaa circlekeenu waana ka baxay Way. aad Waa sax. Waad mahadsan tahay. Aad baad mahadsan tahay. Siciidow, wax su'aalo ma haysta adiguna oo aad weydiinayso teamka? صح horta aad baad mahadsantiin dhammaantiin macalin mukhtaar iyo ustaad maxamed cigaba yaan waxaan weydiin lahaa horta businesska dhibaatada ugu weyneed ee aan practically aan ugula kulmay anu waxa ka mid ah waqtiyada ka mid ah in dee waa hay'adaha jira waddanka maalgeliya laakiinse hay'aduhu qofku fikirkii kolku abuuro lacagtay qofka siinayaan iyo timeku meeshii ku furayo jaaniska la siinaya aad bay u kala yaryihiin marka iminka tusaale ahaan fikirkaa ah businesska iyo IT-ga businesskii actually waxa dhacday 2019 ay hay'adda Save Children Business qabatay adigu meelaha $3,000 bay qabanaysay laakiinse caqabadii ugu weyneyd ee hay'adda nagala kulantay waxaa ka mid ah businesskii markaanu ku guuleysanay ee proposalkii ku soo baxnay hay'addii inta ku oranayaan
waa inaad date fixed dayda kuu qabtaan xilligaa meheradii waa inaad furtaa meheradii kolkaad meheradii furaysid dee qof iska ardaya waad garanaysaayo in ma haysto dee lacag uu ugu sii talagala inuu business ku furto isagaaba furan laaba haye meheradihii beesh positionkii centariskii meheradaha dadkii kireynayay waxay u baahan yihiin lacag carbuuni qaataan haye marka caqabadaha ugu weyn ee baananka iyo hay'adaha iyo dhalinyarta dee maalgelinta ay kala kulmaan dhalinyarta waxaa ka mid ah inay time u qabtaan iyo timekii ku yidhaahdaan timekaa waa inaad furtaa oo timekii qofku waxaa dhici karta marka laygu yidhaahdo waa marka inaad su-aasha u daadego su-aashu maxay tahay waxay tahay sidee macnaha waqtiga loo farsamayn karaa miyaa okay exactly waqtigan uu qofku tusaale ahaan maxamed cigaan tixraacay uu yiri business consultant baan ahayo dadka kolay entrepreneurshipka iyo dadka maalgeliya marka qofkii maalgelinta loo sameeyay de in bal sidee loogu maaj garayn karaa waqti loo siin karaa u fikirkiisii iyo xog ururintii iyo wixii uu iskugu baalaas garay okay waa sax weeyaan waad mahadsan tahay the real king adna walaal soo dhowo nimay horta waa idin salaamayaa ustaad mukhtaar iyo maxamed cige waxaa rabay inaan weydiiyo inoo soo koowayo anad qof IT ahay baaja ahay saa horeda kuu sheegay marka waxaa la horta marka ugu horeyso markaa rabtid inaad wax bilaawdid waxaa fiican inaad qof expert ah la shaqaysid markaa dhahay expert yacni qof hore uu soo jiro waxaan inaa la shaqaysid hadday shirkad tahay hadday ganacsi hore usoo shaqaynay tahay si adna aad wax u faa'iido si aa hore usii socoto doo hadda IT ahay shirkadaha xitaa haddaa isku daydo inaad ku tagto qaab volunteer aad dhahdo yacni wax lacag maro just keliya shirkadda aad ka shaqeeyo ma helaysid see marka caqabadaha see loo buuxin karaa si expert aa u noqoto qof tusaale ahaan intaasoo sano 10 sano 9 sano 20 sano hawshan soo jira see uu hoos shaqayn kartaa si beri adna aad qof expert aa u noqoto waa sax way markaas sidee baad internship u heli kartaa ama muxuu haye aad shaqo u heli kartaa wayaan su-aashaada adiya waa sax way haye waad mahadsan tahay waar muxuu ahaa inaday walaal aad baan kuu salaamaya adiguna iminkaa dib u soo gashay talow muxuu ahaa wax su-aala miyaad haysaayo aad nimankan ka gaadhsiinaysa insha allah martidan maanta inala joogtay culus kubadooda wada salaamantii walaal cabdiraxmaan iyo dhammaan iyo jinaarada dhammaan iyo marti sharafta kalaba walaal wax su-aalo weligiia ma hayo welig ma hayo su-aalahaygii weli waa sax marka markay insha allah saawahayga soo galaan waan weydiina insha allah waa sax weyn aad baad mahadsan tahay way dee waydu kala boobi baan filayaa 4 su-aalood baan idin hayaa mukhtaar iyo muxuu ahaa iyo maxamedow marka waxaan doonayaa horta marka koowaad inaynu brief yar ka helno oo bal muxuu ahaa suuqa hadda businesska iyo IT-ga iyadoo la isku qaadayo opportunitieska waddanku sideeba yihiin way mar walba anigu baan malaha maxamed ka boobayaan filayaa taase waa wixii dambe waan madartay isagaan ku riixayaa cabdiraxmaan su-aal runtii aad iyo aad muhiima weeye oo mar walbana ay tahay si looga saaro dhalinyarta cabsida ah dalkii shaqa ma jirto ayaan doonaya horta inaan arrintaa isyar qabadsiiyo anigoo ka eegaya angalka ah mar walbaba mar walba waxaan sidii yar barbar dhigayaa sanadkii hore iyo kan imika inoo bilaabmay marka xilligan imika ku jirnaana waa marjo waa qaybtii koowaad ee sanadka 4 baa loo kala qaybiyaa sida caadiga ayaan doonaya dhalinyarta ay u fahmaan 4 qaybood baa loo kala qaybiyayo mise loo kala jajabinayaa quarters marka quarterskaasina waa 3 bilood isku xidhay qof kasta oo dhalinyara marka oo ganacsi ka fikiraya ama sida ganacsiga dalka uga bilaabi lahaa ama waa fikirkaaga waa inaad sanadka uu ku bilaabo ma waa sanadka markuu sii gabagaysmay aad ku sii darsato qorshaha si aad sanadka markaa wixii aad bilaabi sidoo kale aad ku eegtiin
marka qorshaha ganacsiguna waa inuu noqdaa ganacsigan markaad aad ka fikiraysid inaad ganacsi samaysid shaygani dalkii horta ma ka jira fikirkan adigu kugu dhashay aad arkaysid dalkan aad doonaysid inaad ka shaqaysid aad ku bilaabaysid horta ma ka jira hadday jawaabtu haa tahay hore ugu jiray waa inaad analysis soo samaysayo suuqan maanta jira ganacsigan aad already ka bilaabaysid haddii uu hore already waa kan usii jira ee aad doonaysid inaad xaan kasii ma qaadid maxaad adigu kaga duwan tahay competitorkaagan competitor baad ku noqonaysaa businesskan marka beri aad bilaabaysid maxaad kaga duwanaanaysaa dadku maxay kaaga dooranayaan qofkan kale laba dukaan isku ag yaala beriga hore wax weeyaan xaggeena Soomaaliyeena caado waxaan iska lahayn ilaa imikadan aad dad u fiirstid Telesom iyo Dahabshiil iyo meel haddii Telesom wax ka furto Dahabshiil baa ka furaysaa Dahabshiil furaysaa Telesom baa ka furaysaa competitor isku badan aba maqsinka ku xiga uu imaanaya marka maqsinka ku xiga kan aad u soo fadhiisanaysid adigu maxaad kaga duwantay wuxuu iibiyaa Soomaali shaari surwaal markuu qofku ka soo iibsado oo ka soo baxo adigu ma ugu daraysaa suun free ama xabada sharaabada free ma ugu daraysaa marka waa waxaad kaga duwan tahay analysis si samaysid waa qodobka koobaad okay marka inay dhalinyaradu la yimaadaan wax maaragtay gooni u amarka koobaad 100% qodobka ugu muhiimsan waa wax aad gooni ku ah oo ganacsigaaga gooni ku yahay ganacsiyada kale haddaba anigoon kasii fogaanayn keeni aynu ka hadlayna marka ahayd teknolojiyadda iyo dalka businesskiisana sidii iskula jaan qaadayaan xaqiiqdii waxaan oran karaa muddooyinka ugu dambeeyey yani idhahda dhikirkii ugu dambeeyey 10 sano ahaa waxa aad u soo koraysay in ganacsiga teknolojiyaddu uu hogaaminayo hogaaminayana mar kastana wuxuu la jaan qaadayaa initiative-ka jira ee ah qaab dhismeedkii ganacsiga siduu u diverse gareynayo teknolojiyaddu oo dawaniga maanta ba arkayna oo AI oo ka yimid meel de maad aragtay nowhere maad aragtay baa la oran jiray Soomaa meel buu ka soo dhacay aan la arkayno haddana maanta sanadkii ugu dambeysay waa shayga ugu hadalhaynta badan leh waa shayga ugu isticmaalka badan leh adduunyada marka loo eego shirkadaha waaweyn ee adduunyada ka jira ee maanta hogaaminaya hadday noqoto social media hadday noqoto technology companieska wax weeyaan bangiyada kuwa ugu waaweyn iyo kuwa la midka ah marka teknolojiyaddu mar walba marka si dambaysa waxay si sibiq ah inoogu soo gelaysaa una diverse gareynaysaa qaabka ganacsigu u shaqaynayay oo qalbiga businesska imika yes marka teknolojiyaddu markayd ka hadlaysa imika muxuu ahaa hogaaminta ay hogaaminaysa ganacsiga ma waxaad ka hadlaysaa contextkeena waddanka mise adduunka oo dhan baad ka hadlaysaa adduunkan ka hadlaya marka dalkeenana waxaan doonayaa inay qaabkan u soo gelinayo anoo ka eegayo 10 sano ugu dambeysay haddaan tusaaleyaal koobana soo qaato sida maalinlaha meelahayn kula noolahay hadday noqoto cashuuraha dalka la bixiyo waxaan xasuustaa 3 sano ka hor cashuurta markaan bixinayo in laamida lagu qaban jiray oo lagu weydiinayay cashuurtii gaadhiga hadda adigoo xafiiskaaga fadhiyaad u diraysaa lacagtii taadii idahab ugu diraysaa iyadoo electronicana waxay kugu soo dirayaan WhatsApp kadib traafigii meelaha kugu qabanayay waxaad tusaysaa QR code kan imika oo device si yar loo qaybiyo oo weli iyadoo iska jirta waraaqda lagu dhijinayay gaadhiga ay saas oo kale u jirto ganacsigoo kale imika 5 sano ugu dambeysay xafiis shirkadaha kala duwan ee aan odayga ka ahay ee Sumdista lagu horeyso waxaan xasuustaa iyadoo aanu xafiiska inta qof tago maaliyadda intaan tago aan bahal yaroo ku ayib jiri jireen oo huruuda kadib aan tago wasaaradda ganacsiga aan haddana waraaq yar la jiri jiray haddana aad tagaysay 5 xafiis oo kala duwan aad isku maraysay hadda imika sanadka 2024 aynu ku jirno cashuurtii shirkadda waxaan ku bixinay online oo runtii maad aragtay cashuurtii ganacsiga oo intaasoo xafiis aan soo sheegayba oo imika aad iskugu maraysid kaliya inaad u dirtid lacagtii maad aragtay online oo wax weeyaan hawlihii ay xaga ka fududeen aniguna marka in cashuurta ay kale portal user bayna siiyeen portal userkaas kala soconaysaa oo eegaysaa in cashuurtaada xilliga license ka dhacayo inta ku harsan iyo waxyaabahaas oo marka waxay noo cadaynaysaa taasi muxuu ahaaye inay teknolojiyaddu ganacsigii iyo businesskii hadda hogaaminayso xaqiiqdii saasaan odhan karaa waxa kaloo dee lagu dari karaa in shirkadaha ugu waaweyn waddanku hadda ay shirkado technology yihiin basically oo maaragtay taa lafteeduna qayb bay ka tahay waayahay maxamedow soo dhowo walaal waan dhowahay koleyda si fiican baa ayaad u daadihinaysaa madasha mukhtaar qodobo muhiim u taabtay intaasun baan si yar magaranaysaa faahfaahinaya in depth horta
technological opportunitieska ama fursadaha technologically ka jira waddankeena iyo guud ahaan duniduba marba mar ka dambeysa way soo tarayaan oo dunida de maanta waxaa gacanta ku hayo maamulayaaba waxa weeyaan waa touchway marka su-aasha horta waxaynu kaga baxaynaa jawaabteeda dee duniduba maanta de waa duni casri oo technologically ku shaqeynaysa marka qofkii dee garoonka technologically ka maqan waxa weeyaan dee wax badan buu talayaa inta haddaan ka imaado su-aal baa muhiim ahayd oo inan ayna weydiisay haddaan qaldanayn oo ahayd sidee baynu su-aashii ugu horreysay sidee baa baqashada businesska iga haysa aan uga hortegi karaa haa horta sideedaba baasha baqashada la idhaahdaa waa fitro iyo abuur waxa weeyaan unug biniaadamka ku abuuran weeyaan oo de maaha wax lala yaabo ceeba maaha waa wax saxa marka inaad baqatay macnaheedu waxay tilmaamaysaa inaad isku day samaysay bay sheegaysaa qofka aan baqanin waa qofka aan tallaabo qaadin aan isku day samayn marka horta baqashadaasi waa signal noo soo diraya inaad isku day samaysay weeye marka horta hambalyaan ku leenahay haddaba sideed uga hortegi kartaa cabsidaas sideed uga hortegi kartaa si aad u bilowdo ganacsi aad noloshaada iyo waxa weeye mustaqbalkaagaba ku maarayso qaabab fara badan oo looga hortagaa jirta kow horta waxa muhiim inaad kalsoonida aad naftaada ka qabto aad xoojiso oo aad dhisto oo qofku haddii aanu isku kalsoonayn dee tallaabo qaadi maayo oo horena u socon maayo marka qodobka ugu muhiimsan ee walaasheen kula talinaya iyo qof kasta oo ay ku jirto aragtida noocaasiba waa inuu horta naftiisa ku kalsoonaado uu naftiisa aamino waxa weeyaan alghina ghina nafs waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi hodantinimada lagu sheegayaaba waxa weeyaan waa qofku inuu naftiisa qanaaco buuxa ku haysto oo uu aaminsan yahay marka business inaad bilowdo waxa ka horeysa horta inaad adigu isxaqiiqsan tahay ood rumaysan tahay oo iimaan buuxa isku hayso marka horta kow xalka ugu horeeya dawada ugu horeysa inuu qoraynaa waa naftaada ku kalsoono baynu leenahay qodobka labaad aynu dawa ahaan u qoraynaa waxa weeye markaad tallaabada ugu horeysa aad isku dayda inaad qaaddo ee dhinaca businesska weliba aad usoo qaaddo waxyaabaha ugu horeeyaad la kulmaysa waxaa ka mid ah rejectioniska in cadaadis badan suuqiyo pressures uu kaaga hor yimaadaan oo aragtidaadii lagula qaadan waayo adeegii aad bixinaysay cidi kaa iibsan weydo agabkii ama aaladihii aad suuqa keentay ay kaa socon waayaan marka rejectioniska faraha badanina waxaad ogaataa inay ku diyaarinayaan waxa weeyaan waaye aragnimada aad ka dhaxlayso inta aad ku jirta ganacsiga ee aad maadaama de ganacsiga aanad magaranaysaay dee quutal daruuri aanad ka doonayn oo aad rabto inaad generational wealth aad ka samayso waxa weye rejectioniskaasina waxa weeyaan way ku dhisayaan oo karaankaaga iyo awooddaadii sheegayaan mar kastoo aad aragto in dad badan ay ka hor imanayaan oo aragtidaadii lagugu diiday oo lagula qaadanaynin ama business ideadii aad keentay suuqa aanay cidi kaa asmacaynin ogow waxa ay kuu diyaarinaysaa un waayo aragnimada aad dhaxli doonto dhowaan insha alla markaa businesskaagu kobco uu kaalin galo qodobka isagana ugu muhiimsan ee cabsida keena waxaas leeyahay waa qofka oo expectationskii uu suuqa ka qabay aan helin tusaale ahaan oo kale qofku wuxuu doonayaa maalinku taajir bay dadkeenu inta badan iskaga badayiin maantuu doonayaa fikrad ganacsi inuu la yimaado tomorrow waxa weeyaan boom inuu qarxo oo ahaa deegaansa markiiba uu generate gareeya lacag badan taasi horta iyaduna waxa weeyaan dee sunno maaha ka jira suuqa ganacsiga iyo xeer ka shaqeeya marka haddiiba uu business idea ay kugu dhalato waxa muhiima filashada aad qabto wax ka duwani inay waxa weeyaan suuqa ay yaalaan oo business ideadaadaasi haddii marka hore aad u maleynaysay ama business balaankii aad samaysay haddii aad islahayd sanad buu ku midho dhalayaa ama 2 sano ku midho dhalayaa taasi waa adiga aragtidaadii aad suuqa la soo gashay laakiin xaqiiqada suuqa taallay waxa weeye in ay wax ka duwan waxa aad malaysanaysa ay magaranaysaa suuqa kula diyaar yahay oo magaranaysaa kugu soo dhaweynayo marka haddii filashadaadii aad suuqa ka qabtay iyo ideadaada waxa weeye aaminsanaantii aad aaminsanayd wax ka duwan aad la kulanto yaanay baqasho kugu abuurin horay magaranaysaa uga sii soco inta ugu badan waxaa jirta qaacido marka laga sheekaynayo qodobkan aad dadku ay usoo qaataan waxaa la yidhaahdaa dadku inta badan lacag bay ay niyadda ku hayaan marka business lasoo hadal qaadama money lacag buu qofku markaaba sawiranaya inuu lacag sameeyo oo maaliyad sameeyo oo dhaqaalo badan abuuro laba arrimood baa ka horeeya markaa lacagta labada arrimood marka haddii aad meel dhigto waxaan hubaa in aad ka adkaanaysa cabsida ka haysa inaad ganacsi bilowdo
labada qaacidada marka waxa la yidhahdaa SM baa qaacidadan la yidhahdaa waa ESM baa la yidhahdaa halka commentiska kusoo qori doonaa ESM baa la yidhahdaa qaacidadan ESM baa la yidhahdaa marka qaacidadaasi haddii aad isku daydo inaad magaranaysa intii taalkaaga aad wax ka fuliso waxaan ku damaanad qaadaya inaad ka adkaan doonto waxa weye cabsida kaa haysa inaad ganacsi bilowdo kow iidu waxay u taagan tahay baa la yidhahdaa energy inaad energy u hayso waxaan tamar potential inaad waxaan xiiseynayso ood jeceshahay haddaanad energetic ahayn oo shaqadan aanad jeclayn ama businesskan aad bilaabayso waxa weeyaan qayrkaabaa sameeyey iska samee waxaan hortaa jira waxaan sameeyey adna iska samee suuqay ka jirtaa waxa weeyaan waa halkii sooraan allah u naxariistee maanta halkay ku jirtaa haddaanay ka ahayn waxa weeyaan oo energy waxaan aad u hayso waad ka adkaanaysaa cabsida marka kow inaad shaqadan iyo businesskan aad bilaabayso iyo shaygan aad doonaysa inaad tallaabadiisa aad u qaado inaad horta energy aad u hayso ood xiiseynayso ood jeceshahay motivation kugu jiro maaragtay xiisada yes haddaanad motivation shayga u hayn haddaanad xiiseynayn haddaanay kaa go'nayn haddaanad rabin you cannot go far meel fog ka gaari maysid kow marka waa inaad energy aad u hayso labo energy-goo keligii meel kuma geynayo dad badan baa jira xamaasadaysan xiisadaysan oo wax badan raba laakiin energy-gaasi estaasi haddii aanu system lahayn method haddaanu lahayn oo nidaam aanu marayn oo hab aanad u samayn oo aanad waxa weeye samaysan waxa weeye plan iyo qorshe aad ku howlgelayso qorshe xume waad Soomaalida tiraahdaa arrin xumo abaar ka daran qofku energy-gu waa hayaa laakiin arrin baanu hayn yani qorshe ayaanu hayn aanu energy-giisa ku maamulo oo ku maareeyo marka energy kaliyood haysaa ay jarbay kaa tuuri kartaa haddaanad energy-gaaga system iyo nidaam marin oo aanad maamulin system aad marisay energy-gaagaasi waxa uu ku dhali doonaa markaa lacag marka businesska lagu sheegaya gebigiisuba waa labadaasoo isu tegey waa energy-gii iyo idea-dii aad haysay oo aad maamushay ood system iyo nidaam iyo qorshe aad u samaysay kadibna kuu generate garaysay dhaqaalihii aad ka lahayd markaa iyo aragtidii ugu dambeysay businesska ka rabtoo lacag ahayd marka kulli qodobo badan oo iska jira hal qodobo baan kaga baxayaa sideedaba marka business horta lasoo hadal qaado waxyaabo fara badan baa dadka maankooda kusoo dhaca business macnaheedu waxa weeye waa mushkilad jirtay oo la xaliyey simbalay waa mushkilad jirtay oo la xaliyey is called business ayaa la yidhaahdaa ganacsi marka qof kasta oo aragti ganacsi doonaya inuu sameeyo ama ay ku mudan tahay suuquuna ha eego deegaankiisu dib ha ugu yar noqdo imise mushkiladood baa dadkiisa haysta mushkilad kastoo deegaankiisa ka jirta ama dadkiisa haysataay waa fursad ganacsi oo qofkaasi abuuri kara weeye marka fursadaha ganacsiga ee suuqeena ka jiraana aad bay u badan yihiin weliba qaybta technologically marka la eego waa ciidda ay camaarkaasi ka badan yihiin marka indho furan in la yeesho waxa weeyaa suuqa la indhaindheeyo la baadhbaadhaana waxay ku tusaysaa mashaakilaadka jira kadibna ganacsi wada abuuraysaa waan ka baxay waayahay aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa su-aaluhu aad bay runtii qaar baa aad u muhiima oo maaragtay in wax laga taabto loo baahan yahay ma garanaysaa markaa muxuu ahaaye horta biyaan idinku hor cabiya iska raalli ahaada haddaad gaajoonasaan yaa waa iska maaragtay soo dhamaystaan afurkaygii waayahay haddaba su-aasha maaragtay meesha taalaa waxa weeyaan waynu isku dhex dhafaynaayo dad badan oo IT-ga xiiseynayaan halkan ka arkaya doonaya inay maaragtay information extra IT-ga iyo opportunitieska ka helaan waxa kaloo iyaduna jirta muxuu ahaayey su-aalihii da businesskii iyo hawshii improvementkiina de waa loo baahan yahay oo maaragtay dhalinyaro badan oo iyaguna waxa jira su-aalaha u baahan way haddaba investment su-aasha muhiimka ahi waxay ahayd investment halkee baa laga heli karaa qofka business doonaya maanta ee fikrad haysta ee initiativekii haysta ee wax la yimid ee wax balaangaraystay sidee buu maaragtay investment sidee buu u keeni karaya dariiqo nooceeya buu u mari karaya contextka ama meesha aynu ka hadlaynaana waa waddankii weeyaan marka investment xagee baa laga heli karaa aad iyo aad su-aasha kolley haddaan ka boobo mukhtaar dhowr jeer hore iga boobe horta qodobkaasi waa qodobka ugu xasaasisan marka ganacsiga la joogo in qofku uu funding u helo ama fan uu u helo aragtidii ganacsi uu hayay qof kasta maanta uu haya aragti ganacsi laakiin markaad ku tiraado maxaad u bilaabi weyday su-aasha iyo caqabadda ugu horse ku hordhigaya waxa weeye dabaanaa lacag hayaa xagee ka keenaa dhagax bay biyo ku shaqaynaysaa lacag bay doonaysaa waa run
qaabo fara badan oo markaa fan loo hela ayaa jirta. haye horta kow qaabka ugu fudud intaanad fanba raadin qaabka dariiqada ugu fudud ee aynu kula talinayno weliba gaar ahaan dhalinyarada iyo qof kasta oo aragti ganacsi hayaba horta dadku inta badan waxay u badan yihiin shaqaalay u badan yihiin oo qofku haye 8 saac buu shirkad ka shaqeeya waxaan way markaa horta kula talinaya talada ugu horsan siinaya waxa weeye inuu bilaabo wax la yidhahdo side hustle inta aanu haye horta fanba raadin qofku aragtidiisii ganacsiga way hayay inuu marka ah waxa weeye waqtigii laga iibsaday ee uu shirkadaha ama cid kale ugu shaqaynayay marka uu kasoo dhammaado inaanu qofku waqtigaa ah seexano ama aanu dee baashaal tegin ama aanu jawiga soo bedelanay inuu side hustle ah galo oo uu way side aragtidiisii hustle isagu ku maxaad ahayd maalgeliyo side hustle waxaad ahayd inaad aragtidaadii ah ku maalgeliso waqtigaagii iyo tamartaadii intaanad horta way lacagba ka fikirin oonad caqabada lacag isoo dhigin waa inuu iman doonaa ah qaababka fanka loo helo marka waa dariiqada ugu fudud ee uu qofku fan ugu heli karaa waxa weeyaan aragtida ganacsiga uu haysto qofku inuu side hustle haye markaa galo oo way aragtidiisii iyo mawduucii ganacsiga uu doonayo inuu bilaabo waqtiga uu haleelka hayo ama weekendiska ha noqoto ama xilliga uu shaqada kasoo ruuxa ha noqoto ha inuu noqoto isku dayo yes inuu balbayskeedii hoose uu soo dhiso uu enerjigiisa ha iyo waqtigiisa uu ku maalgeliyo oo maalgelinta ugu horeysa iyo shidaalka ugu horeysa ee kusoo dhaqaaqaysa uu ka dhigo naftiisa self aad sacrifice iyo inuu aad sameeyo inuu naftiisa way u huro inuu ku bixiyo waqtiga ugu badan ee uu haleelka hayo aragtida ganacsiga uu doonayo inuu abuuro taasi horta waa waayahay qaab fan waa qaab ka mid a fananka qaabka loo helo fankiska qaabka loo helo waayahay mid kale waa jirto markaa qofku iyaduna inuu self deegaan investment sameeyo waa inaanu self lacag investment raadine uu qofka marka sameeyo koowaad aanu waxa weeye cid inuu kale aanu sugin dunida ma jirto hebel hebel waxa waanu garanay waxa la yidhaha wax layskaga ka garan doonaa iyo hebel hebel ma waanu la jiraan jeclaano waanu siinay iyo hadiyad ahaan baan ku guddoonsiinaynaa waxaas kama shaqaysaa halkeenan iyo dunidaba kama shaqayso marka horta adigu inay way kaa soo go'do waxani oo adigu aad u soo ah badheedho oo marka hore aad nafta soo duldhigato oo sacrifice badan aad usoo samayso aragtida ganacsigeeda abuurayso waa qodob kale oo iyaduna waxa weeyaan inta aan la gaadhin qodobada waaweyn qodobka ayaa aan jira ka isaguna su-aasha aan oranaya weliba kaa yara dhex gala maxamedow aad taasi iyo waxa su-aashaasi waxa iminka qodobkaasi waxa weeyaan qofka shaqo haysta ama wax aad kale iyo oo uu maaragtay ku mashquulahaya ayaa loo baahan yahay inuu maaragtay side hustle sameeyo oo waqtigiisa wakaa firaaqada uu geliyo iyo qofka aan enerjigiisa haynna waayahay qofka aan ka haynna aan waxba waxa hayn ka weeye war waxaa la rabaa inuu isagu waqtigiisoo dhanba inta aanu lacag raadin horta uu aragtidiisa soo dhiso oo uu iib geeyo marka hore ayaa la way rabaa waa sax haddaynu taa kaga nimaadno waxaa jirta qaab kale oo fudud oo deegaankiina marka la joogo dhaqaale iyo kab yaroo aad ku bilowda ganacsigaaga aad ku heli karto waa inaad way asxaabtaada iyo qoyskiina aad dib ugu noqoto waad isku soo dardarayaa way tiraa tusaale isku yaroo soo fudud dardaraya oo tusaale yaroo fudud baan kuu sheegayaa anigaana ku bilaabay businesskayga ugu horreeyay anigu aan bilaabay aan isku dayey wuxuu ahaa xafiis aan doonayay inaan consultant serviceska berigii ugu horreeyaan muddo hadda 5 sano wax ku dhow laga joogay ahayd baa waxaan haye sameeyey inaan isku dayo in aan xafiis furto si aan way consultant serviceskayga saldhig iyo base aan uga duulo aan u helo haye kadibna cid alle cid ma garanaysa ayaa isku haleeyo oo aan dib ugu noqdaan garan waayey kadibna waxaan la hadlay dhammaan asxaabteeda intii aan ku tuhmiyey inay dee budget fiican bishii uu soo galo income fiican uu soo galo kadibna isku soo dardara baan ku wax isku soo geegeeya nin walba wax baan ku xukumay haye deegaankiina waa qaab ka shaqaynayo oo fan aad ku heli karta weye intii markaa isku soo haye dardareen iyo wax yaroo aan u waahayey baan ku bilaabay xafiiskaygii ugu horreeyey haddaan markaa beriga aan odhan lahaa waxa weeyaan anigu ma haysto dhaqaalahan ku bilaabo ma haysto bangiyaduna lacag ima amaahinayaan dee waan iska fadhiisan lahaa maantana dee cidimay barateen oo adeegyada aan bixiyo cidbay igumay barateen marka aad iyo qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxa weeye deegaanka inay ka shaqeynaya waa qodobka weeye inaad asxaabtaada dib ugu noqoto qof kastoo tuhmaysa inuu magaranaysa wax kugu biirin karo iyo ehelkiina iyo qoyskiina your family qof kasta oo relativeska iyo asxaabta inuu qofku dib ugu noqdo qaraabada in dib ugu noqdo oo uu soo baadho oo lacag ka soo deynsado xataa haddaanay siinaynin inuu ka soo deynsado oo magaranaysa ay idhaahdo muddadaasaan idinku siinaya ee halaysii amaahiyo taasina waxa weeyaan waa qaab kale qofku oo maaragtay investment qofku uu heli karo uu wax ku bilaabo waa sax aad baad u kala jirto iyadana la dhaho trade equity kolley waad garanaysaa waan u malaynayaa qofku inuu partner raadsado partner ah oo shaqada ay wada bilaabaan
haddii dee inta badan far oo keliya dee fool ma investmentkii haya dhaqaaqayaan dee maamulkii Soomaalida Mhm. investmentkii aad haya iyo aad qof aragtidii aad ula Mhm. tagto oo aad tiraahdo aragtidaasaan hayaa way shaqaynaysaa waan hubaa intaas oo waxa weeye dhaqaalooyin ka generate garayn doonaa magaca noocaasaynu samayn doonaa dee ma garanaysaa ila Mhm. shaqeeyo adna lacagta waxa weeyaan igula sheer garow adna aragtidaan kugula sheer garow taa waxa islamic laftarkeeduna waxa bankinka la weeyaan yidhaahdana waa waxa loo yaqaano mushaarakada waa trade equity mushaaraka waxaan kaasaa la dhahaa baan filayaa mushaarakadaa exactly yeah in islamic bank inuu okay qofku partnership qof partner ah raadsado oo Partner uu raadsi. isku dayo in garanaysaa aragtidiisii uu kula sheer garoobo taa Mhm. laftarkeeduna waxa weeyaan waa qayb kale oo uu ku heli karo maalgelin weliba aad iyo aad qaybihii fudfudaa qodobadii fudfudaa baynu ka hadlaynaa ee qodobadii waaweynaa weli ayaan ka maynaan hadlayna gelin mid kalaa way jirto oo qofku fan ku heli karo waxa weeyaan way inta ugu badan inagu waxaanu jecelnahay marka hore inaynu customerska iyo macaamiil aynu helno aynu jecelnahay Mhm. markaan sidaa leeyahay haye business macnaheedu waa maxay kelmadda business waxa weeyaan waa wax shaqaynaya oo leh Mhm. macmiil uu u shaqaynayo way marka businesskii haddii aad aragtideeda haysood macmiil aad raadinayso qaab kaleoo kaaga fudud baa jirto marka hore inaad horta magac soo dhisato brand way inaad haye magac soo dhisato inaad magac soo haye dhisatahay waa self investment weeye waa maalgelin weeye way oo adduunyada dee karansiga ka shaqeeya waxa weeyaan dadku lacagunba u yaqaanaan lacag keliya wejiga maaha karansiga waxaa kamida 100% networka kamida yeah waxaa kamida lacagta Mhm. kamida waxaa kamida brandka kamida waxaa kamida waxyaalo fara badan oo dadku aanay dee dareensanayn baa karansiga waad ku fangarayn ayaa kartad kamid ku bilaabi ganacsigaaga aad ku bilaabi aad karta iyo kamid aad marka horta saddex way inaad brand adag waxa weeyaan aad soo dhisato oo kadibna brandka marka aad dhisto business marka aad ka dhex abuurto iminka qofka magaca leh iyo qofka aan magaca lahayn waxa ay u fududahay inuu Mhm. businesskiisa markaaba uu generate gareeyo lacag qofka magaca leh Mhm. waa qofka qaab magaca yaroo leh fudud oo waa tricks yaroo waxa yes weeyaan kooban oo uu qofku ku bilaabi karo grants uu ku samayn karo dee lacag uu ku generate garayn karo uu ku bilaabo iisoo qabo businesskiisa marka Mhm. waxaan kusoo way dhaweynayaa mukhtaar oo dee businesska ku dhex jira isaguna oo qodobo waaweyn oo dee magaalada culculus inoo haya ayaan inta dambe uga baxaya aad iyo wixii layga baahdana xagga dambe aad waad sheegi doonaa mahadsan tahay waar live-kana sheer gareeya baan idin leeyahay maaragtay aad dhiirigelintii buu sheer maaragtay gareeyeen aad tiktok iyo buu waxaa sheer weli si gareeyeen fiican umaan soddon balaas baranine bay sii marayaan aad u sheer gareey Ah, gowda ka saara gowda waayahay maasha allah mukhtaar kusoo dhawow maxaad bal adiguna noogu daraysaa tayga investmentis cabdiraxmaan dadku haddaad maxay maasanta halkeebay ka raadin karayaan waa hagaag kolleyba maxamed baa dee hadalkii dhammaystiray oo anigu waxaan is odhanayaa uun aan isleeyahayna laba qodob uun yara dulxaadi oo way runtii maalgelinta markaad ganacsi weliba start aba aad waxa weeyaan bilaabaysid horta dadku aad ku aamini maayaan dhalinyarta haye taasaan u sheegayaa inay caloosh ku sahaystaan anigu runtan jecel inaan dul istaago si maad aragtay wax kana qaraarata sune laakiin de waa in hodhow maad aragtay maxaa yeele waxaas waa wax isoo maray waxaan iminka maanta dhalinyaraan idila wadaagayaa waa xanuunada runtii ugu waaweyn ee ganacsi iga soo maray weeye waliba ninkaan maxamed way runtii su-aasha aynu weydiiyey ee ah maalgelintaasi waan dareemi karaa runtii horta xilligaa hore markaa lagu aamini maayo oo aad maad aragtay ganacsiga aad la timaadi waxa la odhanaya war waxaan uu ka sheekeynaya malaa waa khiyaali qofkan markaad maalgelin aad doonaysid khayaaligagaas sidaad maalgelin ugu heshaa waxa weeye inaad horta aad ku bilaabi waxaan la yidhaahdo maad aragtay operation costco shayga ganacsiga hore u wada weeye oo labaa loo kala way qaadaa operation costkuna markaa muxuu yahay costco operation ganacsiga marka cost waa lagu bilaabaya markaa operation kharashka costco kaaga waa baxaya sida waa su'aal ganacsigaaga aad bilaabso dad meherad furanayso kiradii iyo laydhkii iyo utilityga waxyaabihii kaaga baxayay 100% waxaas okay oo dhan ba waxaa laisku dhahdaa operation cost oo way bil kasta lacag baa ku sugaysaa bil kasta haye lacagtaa ku sugaysaa sideed u maarayn kartaa marka waa inaad marka waa inaad brandkaaga aad samaysataa oo tirahdaa okay sanadka koowaad kharash caynkaasa baan u baahnay waa inaad wixii qortaa oo tirahdaa bil walba intaas ay ka bixi doontaa waxyaabahaasaan ku bixbixin doonaa
marka ugu horeysa stageka koowaad aad taagan tahay waxa aad loo yareeyaa shayga aan ka hadlayna imika la leeyahay maxay operation cost ama OB-ga waxa la yiraahdo haye operation cost hadduu way kugu bato waa shayga keena inuu ganacsiga kaaga dhicisoobo adoon tallaabadii koowaad ba qaadin haddaad isku bedesay oo way meherad baan karaysanaya layl baan bixinaya mushaar baan bixinaya maye horta iskoobo waa inaad sidaas kusoo koobi karaysa horta inaad koobtahay operation cost kaaga yaraysaa waa qodobka koowaad haye ee maalgelintan aynu ka hadlayna waxay ka imanaysa wey marka haddaad way inta haysida $200 ood leedahay waxaan doonayaa ganacsigan inaan bilaabo $200 isku day inaad 3 bilood ku helay ay ku hayn karayso waa meesha ugu yar way waxa yar marka inaad kharashkaaga yes inaad on a budget ku noqoto oo aad maaragtay kharashkaaga yarayso intaad yarayn karayso exactly taas ugu way muhiimsan marka way maalgelinta dhalinyaradu waxay ka arkayaan ma doonaya meel kale aan ka tuso haye waxa mar labaad ah in maalgelin lacag maanta haddii lagu siiyo waa operation cost-kaagan iyo waxyaabaha ku kala maamulaysid soo maha haddaba haddaad saa ku kala maamulaysid qaab adigu aad isku maamulin karaysa adigoon maalgelin baa helin baad ayaa samaysan karaysaa oo way qaabka ganacsigu uu shaqaynayo inaad furfuri kartid oo tusaale ahaan haddaad imika tusaale ganacsi ayaan samaynayaa baan leeyahay meel decorationka lagu iibiyo way meesha decorationka lagu iibiyo qalabkii baan shayga ugu weyne aan iibinaya waxa weeyaan inaan alaabtan aan keeno dadka ka iibiyo soo maha alaabtaas waa inaan focus gareeya sidai igu iman lahayd aanan ka fikirin inaad way meel aan furto saan hore usoo sheegnay iyo waxyaabaha kale marka haye waxaad mar walba isku dayaysaa inaynu aan usoo dhawaado qaybtan maalgelinta way iyo qaabkaynu isku waafajin lahayn iyo ganacsigaaga way marka taasi waxaan is odhanayaa anigoo kolleyba salaadihii baa xaligana nayar taagan oo casariyaba salaadii baa dhow iminkaan tukanaynaa marka su-aasha way waxaan doonaya ha taagan marka waxaan doonaya waa inaan sax kusoo koobo maalgelinta haddaba haddaad doonaysid dhaqaale aad ganacsigaa ku bilaabatid waa sidaan hore soo sheegnay cid ku aaminaysa ma jirtay laakiin adigu inaad heli kartid waxaa runtii aan kuu tilmaami karaa dhowr meelood bangiyada way dalkeena maanta haddii waxaa jira meelaha microfinance-ka microfinance-ka oo bangi kasta oo dalku maanta uu leeyahay oo qoloba magac ay la baxday inaad iyaga horta aad approach garaysid iyagoo kugu xidhaya 2 shardi oo kooban inaad marka way hore aad haysatid sharcigii dalka oo ama haye baasaboor aad walaal leedahay haye ama ID-gii mahadsantahay dhalashada haye iyo qodobka ugu muhiimsan oo ah hantidan lagu siinayo inaad 100% ka haysatid marka way waxaan aad waxa weeyaan taana culays ku saaraya dhalinyarta inay isku dayaan inay qaabkay ganacsiga markay bilaabayaan inay intaa yar haddaad heli karaysid inaad ku dhamaysan karaysid ganacsigaaga adigoo 30% kana marka xaraynaya pointku oo waxa microfinance-ka iyo weeyaan wax la in maaragtay microfinance-kuna waa muxuu ahaaye waa maalgelinta muxuu ahaa businessada yaryar oo waxa bixiya ganacsiyada baananka waka sida dahabshiil bank dar es salaam bank muxuu ahaaye waa sax weeyaan walaal inanta waxay leedahay soo follow back gareeya insha allah okay waa yahay muxuu ahaa marka in shirkadaha waaweyn bixiyaan muxuu ahaa sida dahabshiil bank dar es salaam bank premier bank amal bank dhammaantood microfinance-ka miyay bixiyaan mise waa wax seasonal oo waqti gooniya la bixiyo ama yarta Cabdiraxmaan waa wax sanadka oo dhan furan oo 12 sanadka oo bilood dhan furan waa iyagu marka shaqada kharash intee leeg buu qofku heli karayaa ahba maalgelinta ganacsiyada yaryar kharash intee leeg ayuu helayaa helaya waa 5,000 lacagta 5,000 iyo wax ka hor waa waayahay 5,000 ilaa inta ka hooseysa ah ayay horta ayay ku siinayaan faceka koobaad 5,000 okay haddaad soo celisid oo sanad ama sanadii barkaad qabsatay aad ku soo celisid haddana waxay ku siinayaan 10,000 haddana 10,000 haddaad ku soo celisid sanad ama sanadii bar ama 2 sanad qabsatay waxay ku siinayaan 20,000 sidaas u socotaa way ilaa lacagta 30,000 ayay ugu qofka sareysaa markaa wuxuu ku inay bilaabi helaan karaa microfinance 5,000 buu ku bilaabi karaa inuu ganacsiga microfinance-kiisa $5,000 uu helo ها والعقد شكله ما شاء دولار الله بابا ورنتي ayuu ku bilaabi karaya oo weyn waayahay waxa qofka lagu xidhaana muxuu yahay maxaa lagu xidhaayee maaragtay la weydiiyaa qofku maxaa looga baahan yahay inuu maaragtay lacagtaa qaato maxaa looga baahan yahay ma shuruudo adag baa mise wax cid walba oo fikrad fiican haysata ay buuxin karto runtii waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan cabdiraxmaan waxa weeyaan hay waa shuruud aan soon karo maanta cid kasta oo dhalinyar oo aqoon leh oo heer jaamacadeed soo dhameeyey uu buuxin karo waa 3 baa ugu waaya waaweyn horaan labaan u sheegayo
ugu horeysa waa identity-ga iyo yacni in qofku passport ama national ID ama waxyaabaha uu leeyahay waa waayahay qodobka labaad oo ah in boqolkiiba 30 lacagtan uu doonayo in la maalgeliyo inuu isagu haysto uu sii shubo inuu $9,000 haysto okay ayuu imika tusaale ahaan uu doonayaa in la deynsiiyo boqolkiiba 30 lacagta ka mid ah inuu sii shubi karo oo inuu haysto akoonka okay microfinance company-ga uu ku shubayo uu sii haysto waay waa qodobka waay saddexaad inuu fikirkan ganacsiyo uu haysto inuu u diiwaan gashan yahay oo tusaale ahaan businesskii uu ganacsiga haysta shahaadadeedii ganacsiga shahaadadiisi waa inuu haysataa shaatigii okay ganacsiga okay oo okay ganacsigan so markaa ASYZ qofka baa la doonaya yidhahdaa inuu investment helo waa inuu ganacsigiisa soo diiwaangeliyo processkii dabadeedna uu maaragtay maro oo uu codsado muxuu ahaaye microfinance-kii ama muxuu ahaa lacagtii la siinayay fundkii aad iyo aad aad runtii iyo aad oo lacagtaa markaa uu soo gudbiyo liveka meel laga heli karo inoo soo dhiga insha allah niyow waxaan isku dayi doonaa hadday macquul noqoto insha allah inaan youtube kusoo upload gareeyo hadduu ilaha idhaahdo marka I think channel xaggan uu ku jiraa marka waa soo anaa soo maaragtay soo upload gareyn doona waayahay marka that's very good marka ma jirtaa cid kale oo investments laga heli karayo way jirtaa runtii xaqiiqdii Cabdiraxmaan oo waxaa ka mid ah hay'adaha dalkeena la jooga oo iyagu cid badiya u sii dhiiba shaqada ah oo haddaan tusaale soo qaato shaqa doon iyo kala ayaba ka mid ah qolooyin kale oo shaqa kaab la yidhaahdaa ka mid ah organization-kan dhalinyarta iyaguna daladan la yidhaahdo Soonya ka mid ah way badan yihiin runtii oo hay'adaha dalkeena la joogaaba iyaguna investments bay bixiyaan miyaa investment ay bixiyaan runtii oo weliba ganacsiyada way sii kala saaraan ganacsiyada yaryar ganacsiyada dumarka u gaarka ah calaykum assalaam innovationka iyo initiative-ka technology-ga iyo kuwa sectors bay usii kala qaybiyaan beeraha caafimaadka waxbarashada qaabkaas ay usii kala qaybiyaan marka runtii sanadkii waxaan odhan karaa ilaa waxa weeyaan intaan ogaalkay ah ilaa lacag waxa weeyaan 20 milyan ilaa 30 milyan inta u dhaxaysa ayaa investments loo bixiyaa ama hadday noqoto bangiyo ama hadday noqoto hay'adaha iyo ama dadka kale ee sida khayriga u bixiya mararka qaar lacagaha ay runtii maadaragtay ay ku bixiyaan lacago ilaa inahaas marka way badan yihiin runtii meelaha maalgelinta lagu sameeyo waa si fiican okay haddaba muxuu ahaayey su-aasha haddaba waqtigii salaadii bay idin taagan baan filaya marka su-aal kaloo muhiima iyaduna meesha inoogu jirta oo ah muxuu ahaayey internship iyo shaqo sidee bay dadku u heli karaan macnaha inaan baa su-aalina weydiiyey ah yidhi muxuu ahaa laga yaabaa shirkaduhu inaanay internshipba ku ogolaanin dariiqadee baa loo mari karaa si dadku internship u helaan ama opportunity ay khibrad ku helaan wixii uu bartay qofku kaba soqod hadduu IT bartay uu jaamacad ka baxay halkeebuu wax ka bilaabi karaa halkeebuu maaragtay si uu khibrad u helo khibrad shaqo ama wax yar ha ku shaqeeya ama khibradun ha raadsade ee sideebuu opportunity internship iyo shaqaba sideebuu aduu cagta u gelin karaya meel maaragtay environment laga shaqeeyo oo muxuu ahaa uu khibradiisa wax kaga faa'iido كلي مختار باكو رفتي هالكا هورا مواضيع واوين كهالي اسكو دي بباشا وانا رق واوين انترنشيب كبخيو كميد يحيى مختارو سؤاشا انو يغو سو ريخه ما هين انو كجوابay ahayd laakiin iyaro kooban hadaan dhowr 3-4 qodob ku soo ururiyo waqtiga iska waqti daayici baynu ku jirnaa qof kastoo internship doonaya ama doonaya meel uu ku sii tababarto intaanu officially shaqo rasmi u bilaabin waxaan kula talinaynaa inuu horta isagu garto waxa uu internshipka u gelayo inuu garanayo inuu career-ka uu doonayo inuu internship wax weeyaan u galo kadibna hadhow dee shaqo official uu hadhow u qabto waa inuu horta marka hore determine garaya waa inuu si fiican u garanayo career-kiisa iyo waxa uu doonayo marka hore qof qodobka marka aad ka soo baxdo waa in internship marka aad gelayso cidda internshipka ku siinaysaa requirements bay ku weydiinayaan shuruudo ay kugu xirayaan
way waa in markaa aad isku daydo intay taalkaaga requirementska ku xidhan waxa weeyaan internshipka cidda ay kugu xidhay cidda ku siinaysaay inaad iyadana buuxiso oo aad si fiican iyadana aad u buuxiso wixii dee lagaaga baahan yahay way ee dhankaaga ku xidhan way qodobka saddexaad ee isaguna muhiimka waxa weeye in aanad sugin inta lagu yeedhayo lagu odhanayo internship baan ku siinaye waxa weeyaan soo howlgal balse aad adigu aad xilli haye hore aad isku daydo inaad howl gasho oo aad kariyarkaaga inta meelood ee internship aad kaga heli karto oo dhan aad baadho aad suuqa gasho oo aanad dee guriga iyo sariirta iska dul fadhiyina aad howl gasho oo aad dhaqdhaqaaq samayso وأن way ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه صح سوف أنا يرى سعي ثم وسوف يجزاه يرى الجزاء الأوفى abaalmarinta waxaa helaya un qofka sacyiga iyo socodka la yimaada way marka in aad u dhaqdhaqaaqdo oo aad raadsato internshipka oo aad tiraahdo niyo internship baan u baahanahay may siin kartaan waa lagu diidayaa mid kale aad u tagto haddana sida aad ku wado Mhm. internshipka marka aad raadsanaysid qodobka afraad weeyaane inaanad muxuu ahaayey aanad iska raadsan oo aanad odhan internship baan doonayaa meel walba aanad madaxa la gelin balse aad way specific companieska bixiya ama adeegyada aad adigu jeclaan lahayd inaad hadhow bixiso ama aad ka shaqayso ama waxa weeyaan agabka iibiya agabka aad adigu jeceshahay inaad hadhow magaranaysa ayay sales person ama iibiso salesman saxa aad ku noqoto si kooban Mhm. inaad kumbaniye gaara aad caymato oo ay smatch garaynayaan kariyarkaaga iyo professionkaaga iyadana way aad target ka dhigato Mhm. adduunyada dee waxa weeyaan maanta waa fartaaday ku xidhan tahay markaan kuleeya raadso mararka qaar khasa maaha inaad suuqa gasho oo maalin oo dhan aad waxa weeyaan kaba aad hoosta kasoo mariso laakiin si online aad ku baari kartaa adigoo aad gurigaaga iyo aad jooga ayaad online ahaan ku baari kartaa haye intaa marka laga yimaado inaad network samaysato iyaduna waa muhiim oh yeah inaad that's a very connections good point leedahay connection connections iyo network iyo waxa weeyaan inaad collaboration waa inaad team waxaa la dhahdaa your network is your net worth waxa aad tahayba haye waa dadka aad taqaano haddaana dad badan aqoonin Mhm. wax badan ma tihin marka fursadaha way dee biniaadam ka haya fursadu banaanka ma yaalyaalaan marka aad iyo aad inaad isku daydo inaad noqoto qof bulshaawi ah oo social ah oo waxa weeyaan furfuran oo dadka dhex gala oo la sheekaysta oo baadhbaadha oo qofba qofka uu ka mudan yahay la saaxiiba qofba qofka uu magaranaysaayay fursada aad kaga tuhmaysa inaad ka ag dhawaato inaad iyadana network Mhm. iyo xidhiidho badan samaysatahay better for you adigay ku magaranaysaa aad roon iyo aad tahay marka marka qaabo fara badan oo si qofku internship muxuu uu ku samayn ahaa karaa jira networking eventsna way jiraan aad iyo aad imika anu hargeysa waxaan ku garanayaa networking events baa jira oo badan oo aad iyo ay aad qabtaan every field imika haddii aad iyo aad AT-gan nahay wanagii anagu waan annagaaba qaban qabana jirnay annaga laftarkeega qabanaa imikadan laftarkeeda mid baanu qabanaynaa 2-3 habeen kadib marka haddaad aad gebile iyo aad joogto ood naga daawanayso waxa weeyaan come to gebile that would be national great library noogu kaalay waxa insha weeyaan allah waxaanu aad samayn iyo doonaa aad barnaamij weyn oo event ah oo xaweyska rabadaantaan u bixinay marka haddaad halkaana joogto maasha waanu allah kugu soo dhaweynaynaa oo nagala soo qayb gasho fursado badan baanu ku wadaagi doonaa fursadaha ganacsiyada ka bannaan fursadaha technological waxa weeyaan opportunitieska ganacsigu hayo technologyga waxyaalo badan baynu ku wadaagi doonaa fursado badan baynu ku wadaagaynaa hadduu ilaahay idhaahdo halkaa laftarkeeduna waa aad iyo jaalis aad marka networking ah eventskana inaad waxa weeyaan aad isku dayda inaad ka qayb noqoto cornel mar walba walaal aad aad kasoo baad u dhex mahadsan muuqato tahay wuxuu yidhi live-kan oo kale inoo soo badiya waay waad mahadsantihin walaal waynu soo badinaynaa insha soo allah badinahayaa waa yahay ha marka in networking ay dadku sameeyaan si maaragtay dee loo ogaado qofku inuu wuxuu dad yahay badsado qofku inuu dad barto dadku waa aad iyo hansan aad inuu dad badsado aad iyo aad exactly aad iyo aad. so inuu dadka badsado inuu maaragtay muxuu ahaaye social eventska uu ka qayb galo oo maaragtay networking eventska waxaan la idhahda ee laysku imanaya ee ama mawduuc laga aad iyo hadlayo aad ee in aad iyo maaragtay aad uu ka qayb galo sidoo kale inuu dee albaabada garaaco oo shirkadaha uu aad maaragtay iyo aad xiisaynayo inuu applicationkiisa shaqadooda iyo oo kala waxa weeyaan qabto personal baayadiisana qofku inuu xoojiyo oo uu inuu isa xoojiyo sharaxi garanayo exactly qofku uu isa sheegi karo waxaa la idhahdaa yes soomaalidu waata ku mahmahda maxaa la idhahdaa nin aan hadalba habartii qadaysa soo maahayn qofku inuu isa sheego oo suuqa iskeeno exactly oo uu yidhaahdo waxaas iyo ismuujiyo waxaasaan oo qabtaa magaranaysaa hadlo aad iyo aad ah magaras marka marka waxaa jirtay internshipku mawduuc mar waa waxaa jirtay aanu waxyaabaha ka ugu fudud ee hadalnay qofku heli kara wey waxaa jiray networking event yaroo back in
December imka sanadkii hore aan Hargeysa ku qabanay waa la anaga socday iyo barkulan aad iyo aad marka waxaanu ka hadlaynay ugu muhiimsanaa waxay ahayd qofku sidee buu digital branding kiisa u samayn karaya wuxuu doona ha ahaado wow laakiin sidee wow buu maaragtay uu u dhisi karaa brandkiisa digitalka ah so qofku si uu aad iyo aad opportunities u helo in uu maxay ahayday dee profile baya uu haysto hadduu qof IT yahay inuu dee GitHub oo kale haysto ama Behance inuu waka haysto profile haddii uu aad iyo designer aad yahay dee Facebook pageskiisa iyo muxuu ahaayey Instagramkiiyo Twitterkiisuna inay reflect garaynayaan isaga laftiisu wuxuu qabto iyo marka shakhsiyadiisa ay ugu ka horeyso oo turjumayaan dee exactly iyo muxuu ahaa LinkedInkii inuu qofku haysto oo qualificationskiisii wixiisii oo dhan ku qoran yihiin marka maanta haddii aad aad iyo meel aad wax ka xarayso qofku wuxuu ku weydiinaya war aad iyo aad reference xageen maxaan maaragtay xageen kaa akhriyaa dee oo absolutely kume where absolutely are you ma garanaysaa exactly aad iyo so aad inuu aad profilekiisa qofka presencekiisa ama joogitaankiisa maaragtay social mediaha iyo xoojiyo online-ka ahi inuu xoogan yahay exactly waa aad iyo aad waxyaabaha ugu muhiimsan kulamadan maaragtay laftarkooda En- en- kulamadan imikada laftarkooda ha aynu ku jirno this life waxa weeyaan at this mhm. moment iyada laftarkoodu waa meelo uu qofka Charles ka heli karo wey oo aad waxa iyo laga aad yaabaa qof su'aal muhiim ah kusoo weydiiya aad tirahdo wow waa qofkaas waa muhiim Mhm. bal hadhow marka life ku yes dhamaadaan dib ma garanaysaa si gaar aan u contact gareeyo marka meelaha exactly cilmigu yaallo golayaasha iyo platformska sidan oo kale lagu gorfeynayo arrimaha muhiimka ah ee mustaqbalka daaran inaanu qofku ka Mhm. maqnaanayo mar walba uu raadsado oo uu ka ag dhawaado waa that's aad iyo great aad laftarkeeduna muhiim aad baad u mahadsan tahay maxamed salaadiinii baad taagan mise weli waqti baad haysaan ha so waad ha iska annaga taagan tahay salaadii baa noo taagan annaga salaadii beri waa baa idin noo taagan taagan tahay waxa weeyaan waa sax weeyaane iska